ka mid ah asxaabta ama dhalin daawadayaal ku soo dhawaada channelka Cadceed Vlogs waxaan joognaa bartamaha magaalada Hargeysa halkan oo maanta doonayna inaan vlog aad iyo aad u qurux badan ka soo duubno vloggan oo ku saabsan xuska 18 May ee sanad guuradii 18 ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan maanta doonaynaa bal suuqa magaalada Hargeysa inaanu dadka la wadaagno sida looga diyaar garoobayo sidaad imka arkayseen waxa dhammaan xarumaha dawladda iyo public iyo private ba waxa lagu xardhay calanka iyo astaanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale suuqyada iyo meel kasta oo sharciyada magaalada Hargeysa kamid ah waxa lagu iibinayaa calamaantii qaranka dadku si aad u iibsanayaan saxmaduna aad buu badan tahay maadaama uu soo dhow yahay xuskii 18aad xuskii 13aad ee 18 May maalintii ay Soomaaliland qarannimadeeda dib u soo noqotay daawasho wanaagsan baad leenahay video markuu soo gaadho fadlan subscribe ta like ta iyo comment-iga nala dhaafina aad baad u mahadsantiin wana dhiirigelisayna ku socdo baan leenahay daawasho wanaagsan واو علامات Soomaaliland bad iimin samxadeeda عيد مبارك بان لي سنة قروة ونكسب بان لي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كان مسد سينسا يا كان مسد سينسا كاو عن سينيا توماس سينيا شريه توماس سينيا توكرو شيل ما سينسا هذه يضو ما سنت هذا ما سنت ايوه qadro maxaad leedahay ilaahay baa barakeeyay aydhimayga waxaan leeyahay taraafik inuu noo soo dhawaado insha Allah ka waran saa lagaaga iibsadaa labada moogaanina dhammaan daawadayaalkana waa mid ka mid ah dhalinyarta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee halkan ku sugan isla markaana shaarica kaga iibinaya baabuurta iyo dadweynaha maraya calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku dhawaaqaya oo ku codeynaya sidii looga iibsan lahaa calanka si isna dakhli uga helo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay mudnaanta u ahaato si soo baxa iyo dabaaldega iyo diyaar garowga 18 May daawasho wanaagsan baad leedahay saaxib calanka ku iibinayso bal inta noo dhayal kuma iman dhiig baa u daatay xinjiraana loo dhuray heesaas waa kamisoon saaxib way soo socdaa ma fahanti way saarantaa ana sameeyay 18 May inay ka qayb gali doontaan ma leeyahay waa noo jeedaa saaxib magacaaga saaxib sidiiq wala saaxib sidiiq calamaanta si lagaaga iibsada ka war niyow calamaanta niyow kuwii soo sameeyay baa saaxib wax xun bay sameeyeen niyow way qaaliyeen calanka anu waxaan ka dhigi lahaa free ba ka dhigaa dadka siin lahaa dadka free baan uga dhigi ma sha Allah laakiin si fiican baa loo iibsanaya si fiican baa loo iibsanaya walaal 18 May hore iyo kan labadood iibinaysa la inkastoo aanu magaalkan barigaas ka maqnaa aan meel ku maqnaa wadamo kale iskaga maqnaa tan ma ka soo qayb galay laakiin meelahaas aan ka daawanayay marka ma sha Allah maantana aad bay kugu fiican tahay inaad calankaaga ku iibinayso magaalada Hargeysa calankaygii magaalada Hargeysa ku dhex iibinaya sida loo iibsanayo doorkan ka war wallahi si fiican dadku waa la wada iibsanaya calanka maanta yar gacanta iibinaysay waxaan arkay iyagoo khamaara iyagoo face mask iyagoo cabaayada laga talay iyadoo kuwii baabuurta sidoo kale jeenqaar loo sameeyay adoo intan u badibinay maya halkan bay yaala mehertu waadsan waa ku dhawaay ma sha Allah store bad leedahay store baan leeyahay kolba wala sabaxa marka dhamaad aad baan kugu mahad celinaa anaguna aad iyo aad bad mahadsantahay daawadayaal imika waxaan joognaa khayriyeed ayaan joognaa halkaa waxaad ka muuqataa diyaaradii la soo riday 91kii markii qarannimada Soomaaliland la soo celinayay waxay u tahay astaanta ugu weyn ee lagu xusuusto 1991 isla markaana qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland alxamdulillah maantana wada aragtaan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland nabadgelyada iyo horumar ka jira maalintan wax noqotay maalin ciideed oo dadka Soomaaliland oo dhan ay u dabaaldegaan isla markaana dhaqdhaqaaq fara badan iyo magaalada Hargeysa soo camirantaa aad moodaysid ciidii oo kala moodaysa ciidii aan soo dhaafnay kale assalaamu calaykum asalaam magacaaga walaal maxamuud baa la dhalaa maxamuud aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku nimi adigoo calamaanta Jamhuuriyadda Soomaaliland ku iibinaya shaaric kamid ah ama darar kamid ah dariiqada magaalada Hargeysa ka waran calamaanta lagaga iibsaday calamaanta aad baa walaal looga iibsadaa xus
xuskan 18 May nagu soo fool iyo kii hore labadaba wad iibinaysaa Soomaa labadaba waan iibinayni keebuu suuqu xaamiyo calamaanta si fiican lagaga kan buu ka dakhli badan ka socod badan yahay ma sha Allah Ilaahay ku barakeeyo muwaadinka reer Somaliland ee halka calamaanta ku iibinaya waxaan leenahay dhammaan bulshada reer Somaliland gaar ahaan reer Hargeysa ogaada calamaanta iibsada ku xidhnaada meheradiisa baan leenahay aad baan kugu way waa maasiti shukran idinkana aad baan hayo walaal Hargeysa gaar ahaan khayriidii jamhuuriyadda Somaliland waxa halka lala taagan yahay dhalinyar aad iyo aad u fara badan oo ka qanacsanaya isla markaana iibinaya calanka jamhuuriyadda Somaliland iyadoo astaamo aad u fara badan loo sameeyay astaamaha calanka ay kamid yihiin calamaantii loogu talagalay in wadooyinka laga lulo kuwii baabuurta dallado loogu talagalay in bacadka laga harsado maalinta 18 May ee xuska qaranka jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale waxay iibinayaan calamaan loogu talagalay decorationka baabuurta صاحب يا halkan aan joognaa waa banka dhexe hortiisii halkan waxa lagu dhajiyay board aad iyo aad u weyn oo ay ku sawiran yihiin dad u dabaaldegaya xuska 18 May iyo sawirkii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa halkan ka muuqda dabadeeda dad yow aad u fara badan baa halkan isugu yimaada sawirro ku gala fiidiyoyo iskaga duuba si fiican baa halkan ay dadku ugu faakahaystaan halka dhinacayga waxa ka muuqata xaruntii faakahaysiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland diyaaradii oo iyadana astaan qarana halkan waa khayryadii calamaan aad u fara badan baa lagu iibinayaa calamaantan oo ay ka turjumayso xuska 18 May daawasho wanaagsan baan idin leenahay daawadayaal waxaan la joognaa mid ka mid ah dhalinyarada suuqa Hargeysa dhexdiisa ku iibinaysa calamada iyo waxa la xiriira u eegag ama sida gacmihii koofiyadihii maaskaradii kan waa noocma daladii yaryaraa madaxa la gelinayay dhammaan waxa haya qalabkii loogu talagalay in xafladda ay dhin meel laga qayb galo magaca walaal marka hore waxa la dhahaa assalaamu calaykum waxa la dhahaa magacayga Salmaan Cali walaal Salmaan Cali Salmaan soo dhaw marka hore channelka AK Vlogs soo dhaw ka waran maanta jawiga maxaa dareemaysaa maanta waxaan dareemayaa walaalo jawiga waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn maadaama aynu diyaar garoobeyno 18 May xuskii 18 May aynu diyaar garoobeyno waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn oo aan la soo koobi karin ka waran alaabahan si laga iibsanayo calamaantan iyo saacadan waxyaalaha fara qalabkan kala duwan aad iibinaysaan alaabaha walaal si fiican baa loo iibsanayaa si fiican baa lagu diyaar garoobayaa waxaan ku wariday si aan sidii hore loo xus jiray ka weyn ayaa loo xusaya sanadka ma sha Allah ka waran maanta oo kale iyo maalintii hore aan xaflada aan dhimiga aan soo dhaweyn iyo maanta maxaa farqiga u dhaxeeya waxa farqiga u dhaxeeya maalin walba maalinta ka dambayso waxa soo badanaya dadka iibsanaya calamada ay u sii diyaar garoobaya 18 May marka maalinta ka dambayso dadku way sii fara badanayaan oo aad wax magaalo suuqa laga sii iibsanaya oo wax ku calamada loo iibsanaya calamada kala duwan sida maskaradaas oo kale sida qobahlaha yar qoortaas oo kale sida daladaha yar oo kale sida koofiyadaha sida calamada waaweyn ee tawxiidka ku yaalo oo aad loo iibsado iyagana sida garamaanta magaranayay kale 18 May ka qoryihiin marka dhammaan waxaan ku si fiican baa loo iibsanayaa ma sha Allah aad iyo aad u mahadsantahay walaal daawadayaal halkan waxaan kula kulnay Cabdixakiin iyo nasaaxiibanta oo mid asxaabtada kamid ah marka uu soo qabtay koofiyad buu siiyay wuxuu kala guri ku soo dhaweeyay goobtan ku iibinayo calamaanteeda iyo alaabahayda inta alaabaad qurux badan buu iibinayaa Cabdixakiin maanta maxaad dareemaysaa maanta waxaan dareemayaa saaxiib qaali farxad aad u badan dareemayaa waxay kaaga duwan tahay maalmihii kale aan dhimigu jirin iyo maanta maxaa farq u dhaxeeya maanta farq weyn ma u dhaxeeya maanta waayo maanta waa 18 May waa maalintii ugu farxadda badneed aniga igu farxadda badneed weeyaan aad iyo aad see laga iibsanaya calamada aad iyo aad wallahi boqolkiiba boqol ma sha Allah meelaha gisa dhaqaaq aad farmada ka jira marka calamanta ma iibsaa markii hore maxaad iibinaysaa mise inta badan maye waan iibinayay hore dhar waan iibinayay laakiin calamaantu aad bay u soconayaan ma sha Allah ilaahay ku barakayo waa qaybo kamid ah ganacsiga milaaharkiisa oo si fiican u kala socda gaar ahaan calamada oo aad loo kala iibsanayo Cabdixakiin maadaama aad koofiyada nasisay waad cadceedin aad koofiyada ka xidhnaad nasisay annagana waxaad noo soo qabataa laba calan aan ka iibsano noocan soo qaba iyo kan
ويمسا قيمة الوضع لبداس اسكولاتو كل شيء بسينس هذا يطبع ما daawadayaal halkan waxaa nagu mid ka mid ah asxaabta ama dhalinyarta oo ku labisan astaanta ama qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta iska xidhay ilaa face mask dalladii macawistii iyo garankii uu xidhay isla markaana uu xidhay alaabo aad u tiro badan oo ah astaanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaw walaal magacaaga Axmed Cabdi Axmed oo aad baan ku soo dhaweynaa si fiican baad ugu labisan tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland astaantiisii ka waran 18 May saa loogu diyaargaroobay sida wax leedin wallahi 18 May aad iyo aad baa loogu diyaargaroobay waxyaabaha aad kala idin kiibsada maxaa kamid ah waxaa kamid ah calamaanta haysaan waa weyn garamaanta koofiyadaha waxa uu leebsada kuwa baabuurta iyo kuwa dadka wada iibinaysa labadaba suuq waa xaami soo ma waa xaami iyadoo lix shaqaartanta xaamiye waa la kala laayay calankii Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyar aad u fara badan waxay bilaabeen inay ka bayc mushtariyaan si ay dakhligooda dhaqaale kor ugu soo qaadaan ilaahay idin barkeeyo baan idin leenahay ayo walaal dhalinyartan sida idin muuqato waxa u baxaysa heestii qaranka jubtan waxa ay ku iibinayaan heestii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacan bay ugu baxaysaa sidoo kale calamaantii bay ku libisan yihiin isla markaana ay dadweynaha ka iibinayaan si fiican buu suuqooda xaamiyay aad iyo aadna waa looga iibsanayaa ilaahay barkeeyo baan idin leenahay فلوق قرحة بدنان ما أنت نكذب إن مقالة هرجيسة إحدى وديار جروجا جمهورية الصومال استديو تمام كمان حسك استديو تمام كمان تسان سوق بجملنا فلنا فيديو ممكن سوق على سبسكرايب تاع لايك تاع إيو كومنت تيجي هنلاقي عارفينا علامات يوم نقول دبلدينا داول شو ونحسن صلاة دي بالله قلنا مساج كنا دينا وين سلام من الرمات تيمبا حرني ماذا تلقيني حاسي لون